filimku wuxuu ku bilaabmaya 1980kii markaasoo calooshood u shaqaystayaal lagu magacaabo Danny Breeze iyo Hunter ay ku sugnaayeen Mexico si ay nin u dilaan. sheeko ay iska sii wateen inta taargetkooda uu ku imaanayo. kadib waxaynu aragnaa laba nin kale oo lagu kala magacaabo David iyo Meyer, kuwaas ay isku koox ahaayeen. dabadeed waxay kor ka arkeen bartilmaameedkooda oo ku soo wajahan, waxaana sida uu qorsho u ahaa ay qarxiyeen mid ka mid ah baabuurtii, iyadoo ninkii ay rabeen uu watay ciidamo badan oo nabad sugid iyo boolis isugu jira. gaarigii bartilmaameedku ahaa inta ay gadaal ugu imaadeen ayay rasaas ku fureen. wuxuu darwalkii isku dayay inuu ord ku baxsado, balse Danny ayaa baabuurkiisu soo dhowaaday. inta uu albaabkii gaariga furay ayuu ninkii bartilmaameedku u ahaa togtay. markii uu ninkii dilay ayuu arkay inantiisii oo ag fadhisaa. qoomamo ayuu dareemay maadaama cunugtan uu aabbeeda ku hor dilay. Danny waa uu niyad jabay oo markaas sarkaal booliis ah ayaa gacanta xabad kaga dhuftay. Hunter oo arkay in Danny uu dhibaato ku jiro ayaa askarigii weeraray oona saaxiibkiisa badbaadiyey. David ayaa si degdeg ah baabuurka u keenay oo wuxuu ka caawiyey inay gaariga soo koraan oo ay wada baxsadaan. dhacdadan kadib Danny ayaa naftiisa kiraahsaday oo wuxuu go'aansaday inuu shaqadan iska daayo oo uu nolol caadi ah ku noolaado. wuxuu ku laabtay dalkiisa hooyo ee Australia. wuxuu waqtigii socdaba muddo kadib waxaa soo gaartay warqad uu ku arkay sawirka Hunter. waxaa soo baxday in Hunter la xirtay kadib markii uu shaqo u dirsaday nin loo yaqaano wakiilka, kaas oo Cumaan ku sugnaa. Danny wuxuu isla markiiba aaday dalka Cumaan si uu saaxiibkiisa u badbaadiyo. wuxuu la kulmay wakiilka, kaasoo shaaca ka qaaday in Hunter laga rabay inuu qabto shaqo lagu siinayo lacag dhan $6 milyan. laakiin waa uu awoodi waayey oo waa uu guuldareystay inuu dilo 3 bartilmaameed oo loo dirsaday, sidaas darteed waa la xirtay. Hunter wuxuu hadda u xiran yahay Sheekh Camar oo ka mid ah ragga ugu awooda badan dalka Cumaan. wakiilka oo hadalkiisa sii wata ayaa Danny u sheegay in shiiqu uu doonayo in shaqadiisa loo dhammeeyo oo haddii loo qaban waayona wuxuu dili doonaa Hunter. Sheekh Camar oo ah boqor laga soo ereeyay gobol yar oo Cumaan ku yaala ayaa doonaya in Danny uu dilo 3 askari oo hore uga tirsanaa ciidamada Britishka, kuwaasoo kala ahaa Stephen Harris, Warwick Craig iyo Simon McCann. sababta wuxuu doonaya inuu ugu argudo wiilashiisa maadaama ay askartani had koor ka dilin 3diisa wiil ee ugu waaweyn. sheekhu wuxuu Danny ka doonayaa in nimankaas muuqaal laga soo duubay iyagoo qiranaya dembigii ay geysteen oo ah inay wiilashiisa ka dileen, markaas kadibna waa in loo dhammeeyaa ayaga. wuxuu intaas ku daray in qasab ay tahay in dilkooda loo ekaysiiyo shil. haddii uu arrintaas guulaysto wuxuu heli doonaa $6 milyan oo saaxiibkiisa Hunterna waa la sii dayn doonaa. Danny waa uu aqbalay inuu shaqadan qabto oo Hunter ay u tagay si uu u arko. Hunter waa ku farxay inuu saaxiibkiisa arko oo waxay isku dayeen inay halkaas ka baxsadaan, laakiin waxaa ku fahmay wiilkii afraad ee sheekha, kaasoo u sheegay inaysan arrintan mar dambe isku dayin. Danny wuxuu markaas u tagay wakiilka, waana uu ku xanaaqay isagoo sheegay in Hunter dhiiqada uu ku jiro uu isagu u lug lahaa, balse wakiilka ayaa xaqiijiyay in arrintan aysan ahayn qaladkiisa. Johnny wuxuu u raacay diyaarad si uu mishinkiisa u guda galo. wuxuu dib u xasutay waqtigii uu la qatay saaxiibtiisa Anna ka hor intuusan halkan imaan. Danny wuxuu u tagay David iyo Meyer, kuwaasoo aqbalay inay caawiyaan, balse waxay ku xujiyeen inuu lacagta qayb ka siiyo. sidaas Danny ayaa sheegay inuusan lacag u baahnayn oo uu kaliya rabo inuu Hunter badbaadiyo. waxay go'aansadeen in bartilmaameedkooda koowaad ay ka dhigtaan Stephen Harris, kaas oo ay ogaadeen inuu Cumaan weli joogo. sidaas darteed Danny ayaa habeen ninkaas daba kacay oo gurigiisa ayuu dhacay. wuxuu dareensanaa inay qasab tahay in dilka ninkaas loo ekaysiiyo shil, oo markaa wuxuu soo jabsaday gabal mutuleel ah oo musqusha guriga yaalay, waana uu soo qaatay. Danny ayaa xilligaas David u diray Ingiriiska si uu u ogaado halka ay ku sugan yihiin labadii qof ee kale. David ayaa tagay baar oo wuxuu dadkii weydiinayay qaar ka tirsan askartii Britishka ee Cumaan ka soo dagaalamtay. waxaa warkiisa la gaarsiiyey nin lagu magacaabo Spike Logan, kaasoo loo sheegay inay jiraan dad raadinaya saraakiishii hore ee Britishka. waxaa loo diray sawirada David oo odayaashii ka sareeyay ayuu arrintan la wadaagay. wuxuu sheegay in dad uu ka shakiyay ay daba socdaan saraakiishoodii hore oo ayna dil rabaan. odayaashii ayaa Spike u sheegay inuu shaqadiisa qabsado oo uu sidoo doon arrintan u xaliyo. laakiin David ayaa markii uu baaritaankan sameeyey uu ku laabtay Cumaan. waxay bilaabeen inay qorsheeyaan dilkii Harris. Danny ayaa dubbe ama burus ka sameeyey mutuleelkii yaraa oo wuxuu dejiyey qorshe uu Harris ku dilayo, isagoo u ekaysiinaya in uu musqusha ku dhex sabi baxay oo uuna madax ka dilaacay. intii ay qorshahan falanqaynayeen ayaa uu nin sawiro ka qaatay. ninkani oo Ingiriis ka yimid ayaa David soo daba kacay. Danny ayaa ninkii arkada oo cirsaday, sidaas ninkan ayaa dhex galay tunnel oo u baxsaday. kadib kooxdani waxay aadeen guriga Harris iyagoo iska dhigaya inay yihiin cilmi-baarayaal dokumentari sameynaya. markii ay gudaha galeen ay qori madax ka saareen Harris, wuxuuna ku qasbay inuu qirto dilkii uu geystay 3dii wiil ee sheekha. kadib markii ay muuqaal ka duubteen ayay geeyeen musqusha, iyagoona damacsanaa in dilkiisa ay u ekaysteen inuu simbirraxday oo uuna si shil ah mutuleelka madaxa ugu dhufsaday. sidaas Harris saaxiibtiisa ayaa albaabka soo garaacday oo Danny iyo Meyer waa ay yara mashquuleen. Harris wuxuu isku dayay inuu baxsado, taasina waxay keentay in Meyer uu ninkan xabad ku dilo. sheekhu ayaa ogaaday in mid ka mid ah raggii la dilay oo wiilkiisa ayaa u tagay Hunter si uu ugu bishaareeyo in asxaabtiisu ay dileen mid ka mid ah bartilmaameedkooda. inta Danny uu socday inuu dilo bartilmaameedkiisa labaad ayaa dhan kale Spike u ogaaday in Harris la dilay oo haatan uu garanayaa cid ka dambaysay. mar kale ayuu odayaashii u tagay oo wuxuu u sheegay inuu hubo in ninkii uu sawiradiisa tusiyey uu yahay qofka Harris dilay.
wuxuu sheegay in haatan wixii ka dambeeya ay taxadaraan. David ayaa Dani ku wargeliyey inay heleen halka uu ku sugan yahay bartilmaameedkooda labaad oo lagu magacaabo Warwick. waxaa shaaca laga qaaday inuu isagu ku jiro isbitaal ku yaala dalka Australia. inta Dani uu isbitaalka hor tagnaa oo uu isku dayay inuu qorshe la yimaado ayaa Isbaak oo gaarigiisa saarnaa uu kor kala socday. wuxuu fahmay in ninkan uu gaaris u socdo, sidaas darteed oo daba kacay. Dani ayaa gartay in la daba socdo oo Isbaak ayuu jah wareeriyey isagoo magaalada ku soo wareejinaya, wuxuuna aakhirkii dib ugu soo noqday isbitaalkii. sidoo kale Isbaak ayaa isbitaalka ku soo laabtay oo waxay bilaabeen inay dagaalamaan. dagaalkoodu wuxuu socday muddo dheer oo Dani ayaa gacanta sare yeeshay. kadib markii uu adkaaday ayuu dhawaqiisa yariin ka yeeriyey oo isbitaalka ka soo tagay. wuxuu u tagay kooxdiisa oo uu sheegay inuu sargaal daba socdo. si kastaba hatee waxay weli kusii dheganaadeen qorshahooda. Warwick ayaa habeenkaas joogay xerada militariga. Dani isagoo askari isu ekaysiinaya ayuu galay gudaha xerada oo kafeegii Warwick ay sun ku daray, taasoo keentay inuu aakhirkii dhulka ku dhaco oo uu dhinto. kadib kooxdii Dani waxay go'aansadeen inay xeelad kale isticmaalaan si ay u dilaan bartilmaamoodkoodii ugu dambeeyey ee Simon McCann, kaasoo shirkad calooshood u shaqaystayaal ah la shaqeeya. qorshahoodu waa in shil been abuur ah ay waddada dhexdeeda ku sameeyaan si McCann debin loogu dhigo oo uuna shilkaas ku dhinto. iyagoo arrinta la kaashanaya Jack oo aan khibrad badan lahayn ayaa Meyer uu McCann ku dilay shil. si kastaba hatee Isbaak iyo raggiisa ayaa McCann kor kala socday. xabad ayaa isku bilaabatay oo Meyer si lama filaan ah ayaa loo dilay. Dani wuxuu David u sheegay in la daba joogo oo uu magaalada ka dhunto. way kala tageen. si kastaba hatee inta David uu hotel ku socday ayaa waxaa soo daba kacay raggii Isbaak oo markii isku dayeen inuu baxsado gaari xamuul ah ayaa si xun u jiiray. Dani wuxuu ku laabtay Cumaan oo wuxuu sheekhu u sheegay inuu si shil ah u dilay labadii nin ee u harsanaa. sheekha ayaa Hunter sii daayay oo Danina wuxuu ku noqday Australia isagoo aana dib ula midoobaya. waxyar kadib waxaa soo wacay wakiilka, kaasoo u sheegay inuu jiro hal nin oo qayb ka ahaa dilkii loo geystay wiilashii sheekha. Dani ayaa markaas aana u diray Faransiiska si uu Hunter u difaaco. wuxuu dhan kale isaga u tagay wiilkii sheekha oo uu ku wargeliyey inaysan ku ciyaarin maadaama uu awoodo in isagii aabihiisaba uu dilo. Hunter wuxuu markaa dib ula kulmay Dani oo wuxuu u sheegay inuu ka caawin doono inuu shaqada dhameeyo. si kastaba hatee Dani ayaa diiday oo wuxuu ka rabaa inuu iska joogo. Hunter ayaa markaas aaday magaalada Paris si uu aana u ilaaliyo. dhan kale Isbaak wuxuu kor kala socday Dani isagoo wakiilka u dhex maraya. wuxuu koox u diray ninkii la ugaarsan rabay si loo ilaaliyo, balse Jack ayaa iyaga mashquuliyey. waxay tani Dani u ogolaatay inuu ninkii toogto oo uu sawir ka qaato kahor inta uusan dhiman. Isbaak ayaa Dani qabtay oo wuxuu geeyey baqaar cidla ah, laakiin waxaa markaas yimid wakiil dowladeed oo daha ka qaaday in dowladda Ingiriisku ay ka dambeysay wixii ku dhacay wiilasha shiiqa, maadaama shiiqu uu gacanta ku haya dhul saliid qiimo sare leh. markaan dagaal saddex geesood ah ayaa dhacay oo Dani waa u baxsaday, halka Loganna u togtay wakiilkii dowladda. dhan kale wakiilkii ayaa aana isha ku hayay. iyagoo u malaynaya in Dani la dilay ayaa ay qorsheeyeen inay ayadana sidoo kale u dhameeyaan, laakiin Hunter ayaa badbaadiyey oo raggan wada dilay. kadib Dani iyo Hunter ayaa aaday Cumaan si ay sheekha sawiradii u tusiyaan. si kastaba hatee Isbaak ayaa ka hormaray oo sheekha u sheegay in sawiradu ay been abuur yihiin. kadibna sheekhii ayuu toorey ku dilay. wiilka sheekhu ma uusan darin arrintan oo keliya Isbaak ayuu lacagtii malaayiinta faraha ka saaray. Hunter oo arkay Isbaak oo guriga soo baxaya ayaa soo daba galay. kadib markii ay baabuur ka soo qaateen raggii sheekha ayaa Dani iyo Hunter ay Isbaak cirsadeen oo saxaraha ay ku dhex qabteen. Hunter wuxuu qaatay qayb ka mid ah lacagtii oo intii soo hartay ay Isbaak u dhaafeen iyagoo sheegaya inuu u baahnaan doono si uu nolol cusub u bilaabo oo uu caadi u noolaado. Dani ayaa ninkan xasuusiyey inuu dhammayn doono haddii uu mar kale soo daba kaco oo waa ay ka soo tageen. kadib Dani wuxuu dib ugu noqday gacalisidiisa Annie oona filimku halkaas ayuu ku dhammaanayaa. waad ku mahadsan tahay daawashahada. magaca filimku waa Killer Elite oo soo baxay sanadii 2011. subscribe saar oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. intaan muuqaalka la mid ah aynu kulmayno sidaas nabadgelyo.